السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي مركز أجوكتا وهذه السلامة يا وعن دنيا مانتنا قصير إذا كنتم من هالكان وحيلتها محمد كيسة باش أو كم ده على غيرتها هالكان كل على تيودك قدر محمد قصير وعجيبة يعني تكشيكي ميل وشاه كوكرنجري أيو كبح أيو وحبار شو الرأس دي مركز قصة صار ما يندب ويدي محمد كسر دو حصلت يا شيخ آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتي واحد قصيرة خفيفة ولكن الحمد لله. قصتي شاهة حين كسب بلابي. أنا وحنا كنا شيء وطن كان دوحة. مركز تعليمتي وكنا من سنوية دوحة كدب وحصلها شغل ديني مركز. مركز كذا كبحر. مركز كذا كبحر. مركز ظروفه ير أكيد مركز شقويكم ير أيضا. غير كنا ظروف ير هيسي. marka waqtiga meelo badan baa qadimay CV-gayga xilligaana de wax loo baahan yahay qof jaamacad ka soo baxay oo tacliin haysto oo shaqo wanaagsan heli kara laakiin qof sano haysta way adeer adagtay marka waqtiga waxa soo baxay inaan ka shaqeeyo qof shaqo shubaya oo waitera marka shaqadaas aad hesho shaqada isma helo waqtigaas marka duruuftu way adkay waxa yiri khalaas marka aska bilaabo shaqadan ahamiyada leeyahay waxa ugu jirtay tacliinta kamil laakiin duruuftu way adkay markaas markaan helay shaqada training ma yar qaadanay hudheelada Sheraton Hotel iyo Marriott Hotel markaan dhameynay takhasuska shaqeyn taqriiban qaadanay traininga 1 year waxay 2000 kama soo bilaabay 1 ila 1 year bahay markaan shaqada waxaan bilaabnay 2002 exactly shaqada markaan shaqada waxay diina baashino duyufta madaxweynaha wadankan Qatar Ameerika iyo duyuftiisa marka waxay ahayd qasr diiwaan Ameeri bahay marka bilaabnay shaqada marka dad badan baan la shaqeeyay dad baa ka soo jeeday markii qaateen training oo dhiibay in ka baxaan shaqada waxay moodayaan ka shaqeynayaan askari oo kale laakiin markii arkay qof shaqo shubiyo iyo service wada ma noqon sitraad oo ceeb u tahay marka dadkaas markaan dhinacayga waxa hamigayga waxa wax kale ku fikiriyay inaad fursad ma yar sugayay kadib markaan talaabadii horeysay ahaato shaqadana aad bay u wanaagsan runtii alxamdulillah dad badan yani madaxweyne badan bay mali wadanka duyuftooda waxaad very VIP yani ma meel shaar mش caadi ma marka waas ka qaatay marka sanadii baas ka socday ilaa waxaan shaqeynay 2007 alxamdulillah marka duruuftii reerkay yar haytay habli alxamdulillah soo baxay tacliintoodii oo as a nurse marka waqtigaasaan bilaabayna marka shaqeynaysay walaalaha baad rabtay fursad inay wax bartaan ha okay dayirta caruurtii kala waxbarashada dhameeyay markii caruurta waxbarashada dhameeyay hablee khaasatan tamriid baheed markay dhameeyeen marka aanu fursadeed meekay aabiyo marka waa dhaqaajin kartaa cilmigaada waa dooran kartaa waxa ku fikirtay markii hore sayid alxamdulillah marka sayidi waxaan ku talagalay marka aan soo raadiyo wadanka tacliin ku kamiliyo yani halkan jaamacadaha waa qaali jaamacadaha khaliijka waa qaali khaasatan Qatar marka cilmiga meeshu jira boos ku mid yahay marka waqtiga waxaan aaday Malaysia waxa joogay walaala joogay markaas iga horeeyay marka waxay kaalay wadanka eego tacliintiisa haduu wanaagsan yani soo marka hadda dulsa soo eego wadanka fasax bay yar qaateen inay shaqeynaya wadanka ma soo eegay waxa arkay noloshiisa okay laakiin tacliintiisa waa isku mid in Malaysia economicadu aad u sareeyo marka waxaan sabaray dadkii joogay Malaysia iyaguna way ka baxeen intii joogeen tacliin barin Ingiriis ku jireen kadib waxay aadeen Philippines marka aanu dadka wala socday shabaabkaas sabaranay jaamacadda waxay Islamic University baa waqtigaas kadib wala xiriir shabaabkaas marka kadib markaan soo noqday dooxa shaqadan iska kamilay kadib sanad iyaga wala wada xiriir marka iyagu xigeen Philippines sidii soo sheegeen ka warada Philippines oo timaadid oo igtay tacliinta Philippines khara okay marka fasaxadan ay qaatay fasax kala qaat sanadkii kadib yani sanad kadib waxa 2007 waqtiga oo yartay 3 week marka wadanka ma soo eegay tacliintiisa noloshiisa kharashkiisa marka kharashkiisu yani aad u wanaagsan marka loo eego Malaysia khaliijka cilmigiina waa isku mid marka warqadii ma soo ka soo bilaabay marka waxa eegay markaana aqaladii kiradii iyo meesha nolosha ku walaalaha marka warkiiba oo qadimay jaamacadda warqadii jaamacadda oo qadimay warkiiba registration ki jaamacadda waa qaatay warqadii asaas marka ku soo noqdo dooxa ina aado marka safaaradda inay diideen inaan wadankan tago markaan soo noqday
markaa qorshaygan sii bila reerkii ma sii sheegay inaan jaamacadda ma helay takhasuska doonayay marka waxaan dhaqaajinaya insha Allah 2008 marka waxay marka talaabada labaad inaan u sheego dadka u shaqeynaya diiwaanka ka shaqeynaya marka uu sheegay mudiirkii idaaradda haystay hospitality diyaafada ina tacliimatay oo istiqaalan Liibiya wala yaabo yiri qofkan 7 sanadood shaqeynayay oo istiqaalan Liibiya yani xay keentay marka fikradan ma waxba ku jiray waqtiga ama waxba ku fikirsay farbaaqsan u sheegay waxaan ku yiraahdo markii hore ba shaqada waxaan u galay duruufa darteeda baan galay هدفنا هو تينا تعليمتك كملوا سواء طوحة ما دبده لكن ساكن لو شغالين سفي عن مبسوط بانكوها شغلة لأنه وحكوا قاعدين شيء مشهر لكن ما كان وقتي وناس ما وقت جيب واحد مدينة نقاشيو وسير والله بالعكس ونقول فرحينا كنت أرنتاس وهذا يعني مساعدية يعني دعم كسينا يعني سبورت أي تايم مركا توكل على الله يعني رنتي أدبا وفرحسين إلى هنا مكان يعني توفيق خصيصي إن شاء الله كنت مع سود بيس marka warqadii bay u dhameeyeen goor hore alxamdulillah within 2 months anna marka san dhaqaajay markaana after marka dhameeyay warqadayga lacagtaas ka qaatay marka waxaan ku tawakalay ala Philippine marka ana dhigani 4 sanadood 4 sanadood waxaan soo bartay information technology engineer 4 sanadood marka dhameeyay طبعا jaamacadda nolosheedu qof إبسط صندوق سوف ديي يعني وير أدقتنا لا جشيد لكن أنا هميدي ده مسكحة وحدين ديار وهذا وقت قاس مكا الحمد لله مركان قريتش هم عدى ديار موها مكا طفك ما دحق لي طفك فلبين طلاب تيرا شو ينصبرني لأن واحد شوي فورنر تبدأ كيمة حتى السودان مصاري يمن ما صبرني مكا تعليم تو بالله الحمد لله مركا أفرتي الصندوق بندمي الحمد لله on time وكان من امتحانكم هذا ما الحمد لله الحمد لله أنا أدبو يعني كنت شري مكان اهتماما سي موضوع وقتين ولومين ما شاء الله هل كانت صونغة مركان صونغة 2011 وسوي دمي جامعة الحمد لله كدب waxaan noqday dadka ayaan jaamacad soo baxay shaqo raadinay صح marka CV-ga isku hagaajiyay waqtigaas soo qadimay meelo badan dawladda marka waqti bay iska qaadanaysaa waxyaabahaas oo kale طبعا CV-gana waxa ku jirnaa shahaado shubid هذا مو شيء شهادة هراء وكشرتي لأنه واحد دبلوم به. أوكي. تاسع ما تقول كثير وشهادة عالمية أصلا فنادق نطوحة يعني. أوكي. مركز ونوع من الخبرات هذه هراء. عندما أنا كل يوم بنطلق من الخبرات حق صوش غسي مكان آخر الخبرات التخصص كلوها. مركز أنا وقدم ميلا بدن عندما يسوي جوابين. مركز ماشي يعني كشقيني مركز هراء. أصلا حسوسية أنت كان سيقدمه. أنا سيقدمه كان CV. marka dadkii baan u qadimay si idaaradii information technology meeshan ka shaqeyn jiray laakiin idaaradii inta information technology qaybta IT-ga marka ninkii mudiirkan u qadimay isagoo uu xasuusanaya waqtiga ina shaahu shubi jiray imkan oo soo noqday anigoo shahaada haysta wasiiri markii soo dhameysay inta sanadood marka sheekadeed buu sheegay in waqtiga waxay imkan waxaan raadinay shaqo wasiiri insha Allah markaana si وكل صح حرير دونا هذا نصيب كل هذا ميشان وكشقين دونا إن شاء الله كده ما يرسل ما كان عبار يعني صدح بلوت أنت إيمان سو موافقة ده يقبول كمان إدارة ده كده ولي يا ري بلا مقابلات مع صمين الحمد لله لأن ماشي واي قاعدة تذكر لي قاعدة مركانا مركب واحد يسميه كونتراك بيسميه ما شاء الله أنا ما كان وافق مركب كونتراك هو بينه بيش قضية ماشي أنا قاعدة مكبضك قصة ما كده علي ماشي أتشاه وش كشف جرتي أديكو IT وربينا شبكة وحكي قبتت ما كان صاق الشقف ساقو إيه جمد تتاقسم توجه تا موظفين تمر كان كسون قضي ورقضي هو أركين مركي تعيين كيو وقضي السعودي بروسيس السعودي ما كان مقعد أركين ولا يا سقيبة أما متكلم نكينا ليش غيني كهر ديوان كشوية أما ونكره مركي أركين أو وقعي كونتراك مثل أركين ما دقة أو نلاش غين سيد يعني واحد عجيب بهاد لهاد تذكر إن تذكر قف كان نلاش غيني هذا نوصل نقدر سجوا إن نلاش غيني موظف عادية سكله واحد ما كان تذكر قاد بيوفرحين ضد بيجي شيء كين شري يعني تذكر دو شيء كين شري عيال كودو شيء كين شري إن واحد سمي الحمد لله والتوفيق بالله دعوة الوالدين المركز الشيخ كذا إلهي سبحانه وتعالى هو فجيه جهد بني وادرسي هذا المركز الفلبين كل تلني سنوات اللي يحبسون السلام حتى فلبين ووطن قاعد بماليزيا إنديا أو عالم لكن تذكر وطنها فلبين قاعد مو يقانا وحكي يقانا يعني ما يصير الصومال كله بدنا ماشي وحكي وأنا كنت تكتب لها تذكر الصومال ده شوقين لأنه واحد أنا سمير يعني يرسك كوبان لكن علمي وأنا سوي كيرس
laakiin meelaha dadka la joogaan hadalka dadkooda u badan yahay markaa waxba wax wanaagsan xumaan bay kasoo sheegayaan waxaas laakiin runtii Philippines waa wadan aamina oo dadkooda u furfuriyeen tacliintooda tahay professional kharashkooduna yahay macquul qofku iska bixin kara marka wax ku xiranta qofka marka dadaalkiisa hadhow ma sha Allah laakiin aad baa yani dadka u sheegayaan in wadankaasi aad u wanaagsan yahay qofku inuu tacliin u doonto runtii ma sha Allah jazakallahu khayr. Jazakallahu khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.